waqti wacan daawada meel walbo aad dunida ka joogto halkan waa ahlal jalal oo aad ugu barateen muuqaalo xiise gaara xambaarsan. haddaba muuqaalkan waxaynu ku eegi doonaa asxaabtaada ma u daran yihiin caafimaadkaaga. waa warbixin markaa aad u xiiso badan. ka waran haddii asxaabtaada lagu yidhaahdo ma u daran yihiin caafimaadkaaga, haa iyo maya, maxay markaa jawaabtaadu noqon lahayd? haddaba si xog badan arrintan aad uga hesho muuqaalkan daawo oo dhammayso si markaa macluumaad fara badan oo aan halkan idinkugu soo bandhigi doono aad markaa kaga dheehato jawaabta su-aashaas markaa dad fara badan aan filayo in maskaxdoodu ay aad uga dhex guuxayso. haddaba daawada haddii aad lagu cusub tahay fadlan sabskrayb saaro janalkan oo rukumo muuqaalada xiisaha leh ee aan bulshada u soo bandhigno. bilowga sanadka cusub dad badan ayaa qorsheynaya inay samaystaan isbeddel dhanka qaabnololeedka ah. dad badan ayay u fududahay inay iska dhaafaan cuntooyinka fudud ee aan caafimaadka lahayn amaba ay miisaankooda dhimaan marka ay arkeen saaxiibadood iyo qoysaskooda oo isla sidaa sameynaya. si kastaba dhammaan go-aanada saameynaya nolosheenna ayaa laga yaabaa inay yihiin kuwo ay saaxiibadeen, dadka aan isla shaqeyno amaba xubnaha qoyskeena ee aan ku dayanno ay saameyn ku yeeshaan. nasiib darro waxaa sidoo kale aynu aragnaa oo aynu markaa la kulannaa dabeecadaha aan u wanaagsaneyn caafimaadkeenna sida in cuntada la iska badiyo oo kale. asxaabtaadu ma awoodaan inay qof buuran kaa dhigaan. dadka aan qiimeyno waxaan la leenahay xiriir joogto ah. daraasad laga sameeyey caafimaadka wadlaha laguna baaray awoodda xiriirka bulshada dabayaaqadii sanadihii 1940yadii ayaa lagu ogaaday in ay u dhowdahay in qofka uu si xad dhaaf ah u cayilo haddii qof saaxiibkiis ah oo sidoo kale cayilo. waxay saameyntu sii badan tahay haddii labada qof ee saaxiibada ah ay isku jinsi yihiin, waxaana lala xiriiriyaa saaxiibtinimada qotada ee ka dhexaysa labadaasi qof. tusaale ahaan dadweynaha Birmingham ayaa laga sameeyey daraasadda ugu muddada dheereed dunida ee dhinaca wadlaha. daraasadda Birmingham ayaa lagu sheegay in miisaanka qofka uusan saameyn ku yeelan qof dariskiisa ah oo cayilan haddii uu la lahayn xiriir dhow. heerka furiinka iyo maandooriyaha ayay sidoo kale isqaadsiiyaan saaxiibada iyo xubnaha qoyska. xiriirka bulshada ayaa saameyn ku yeesha habdhaqankeenna iyo dareenkeena. tusaale ahaan dadka da-da ah marka ay sigaar cabaan waxaa laga yaabaa in carruurtale ay ku daydaan, iyadoo sidoo kale yaraato dadka iska daaya isticmaalka muqaadaraadka. dhanka kale da-yarta ay saaxiibadood haysato xaalad nafsi ah ayaa la sheegay in iyaguna ay sidoo kale la soo daristo xaaladaas oo kale. fikradda ah in saaxiibadu ay isku daydaan waxaa lagu xaqiijiyey daraasad laga sameeyey 700,000 oo qof oo isticmaala facebooka. dadka tijaabada lagu sameeyey waxaa la eegay qoraalada ay soo dhigaan facebooka iyo kuwa ay saaxiibadood soo dhigaan. cambaareen loo jeediyey daraasadda ayaa lagu sheegay in markii horeba dadka aan saaxiibada la luqanayno ay yihiin dad aan wadaagno dabeecadaha iyo xaaladaha isku midka ah. haddii aan yeelano dabeecadda saaxiibadeen iyo xubnaha qoyskeena, sidee ayaan iskaga dayn karnaa? warbixinteena oo dadka ku dhiirigelinaysa inay joojiyaan aalkooda amaba ay u weecdaan khudaarta cagaaran ayaa loo soo qaadan karaa tusaalaha ugu wanaagsan. dadaalada lagu doonayo wax ka qabashada dabeecadaha baaha ee baraha bulshada ayaa guul laga gaaray tan iyo sanadkii 2012. waxaa loo maleynayaa in dadaaladaas ay in ka badan 1 milyan oo qof ay ku dhiirigelisay inay joojiyaan dabeecadahaas. halkan waa ahlan janal. daawada waxaynu ka codsananaa haddii aad lagu cusub tahay sabskaraab aad saarto janalkan si muuqaaladeena iyo fariimaheenna ay kuu soo gaaraan oo aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee sida joogtada u hela muuqaaladeena. sii la sheergaray oo asxaabtaada la wadaag si markaa macluumaadkeena ay uga faa'iidaystaan. mahadsanidin.